لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. maxaad ka taqaanaa maalinka carafo maalinka carafo waa maalin aad u weyn waa maalin aad u qiimo badan qiimihiisa iyo fadligiisa waxaa ku tusinaya arrimo dhowra kow waa maalinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhammaystiray diinta sida xadiidka cumar ibnu alkhataab uu tilmaamayo cumar waxa u yimi nin yahuudiya markaasaa wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin aayatun fii kitaabikum taqra'uunaha low calayna macshara alyahuudi nazalat latakhadnaa dalika alyowm ciida cumarow aayad kitaabkiinna ka midood akhrinaysaan haddii annaga oo yuhuuda ay nagu soo degi lahayd waxaannu ka dhigan lahayn maalinkay soo degtay ciid baannu ka dhigan lahay cumar ninkii wuxuu weydiiyey ayu aayatin aayadee weeyaan aayaddaas markaasaa wuxuu idhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina waa aayadda ah maanta ayaan diintiinnii idiin dhammaystiray alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii korkiinnana nicmadayda aan ku taam yeelay waradiitu lakum alislaama diina diinta islaamkana aan idinka raali noqday diin inaad ka dhigataan iyo manhaj oo aad ku dhaqantaan waa aayaddaasuu yidhi markaasaa cumar wuxuu ugu jawaabay waan garanayaa aayaddaas booskii ay ku soo degtay iyo wakhtigay soo degtay iyo halkii nebigu uu taagnaa markay soo degaysay maalin carafay ahayd oo maalin jumco ah banka carafa isagoo nebigu uu taagan yahay ayaa aayaddaasina ay soo degtay sidaa darteed xadiidku wuxuu tilmaamayaa maalinka carafo waa maalin ciideed weeyaan bal sida xadiidka cuqbat bnu caamir uu tilmaamayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yowmu carafa wa yowmu الnaxri wa ayaamu الtashriiq ciidunaa ahla alislaam maalinka carafo iyo maalinka dhundhowga oo maalinka tobnaad ah waa maalinka ciidka iyo saddexda cisho ee ka dambeeya 11 iyo 12 iyo 13 oo ayaamu tashriiq loo yaqaano shanta maalmood waa ciiddayada buu yidhi nebigu haddaan nahay muslimiinta iyo dadka islaamka u nisbo sheeganaya waxaa ka mida walaalayaal fadaa'isha maalinka carafa oo qodobka labaad noqonaya sida xadiidka caaisha uu tilmaamayo maalinka carafo waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala dad badan uu naarta ka xoraynayo nebigu wuxuu leeyahay maa min yowmin akthara min an yuctiqa allaahu fiihi cabdan min annaari min yowmi carafa ma jiro maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommaha uu uga xorayn badan yahay naarta maalinka carafa yacni maalinka carafa waa maalinka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiis uu ugu xoraynta badan yahay ee uu naarta ka xoraynayo qodobka saddexaad ee ku tusinaya maalinka carafa qiimihiisa waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u soo degayo ila samaa'i dunya sida xadiidka caaisha uu tilmaamayo wa innahu layadnu ثuma yubaahii bihim almalaa'ika ilaahay subxaanahu wa tacaala waa soo dhowaanayaa addoommaha banka carafo taagan buuna ugu faanaya malaa'igtiisa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu faanaya fayaquulu maa araada haa'ulaa wuxuu odhanayaa kuwaasi maxay soo dooneen maxay halkan u yimaadeen maxay isugu soo aruureen maxay dharkoodii intay u soo dhigeen labada go' u soo qaateen maxay u dullaysan yihiin yay baryayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ugu faanaya haddii aynu garannay walaalayaal maalinka iyo qiimihiisa iyo fadligiisa waxa isweydiin le maxaynu kaga faa'iidaysannaa waxyaabaha lagaga faa'iidaysanaya waxaa ka mid a maalinkaa in la soomo soonka maalinkaa la soomaana fadli badan baa ku sugan xadiidka nebigu wuxuu tilmaamayaa siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allaahi an yukafira asanata alatii qablah waasanata alatii bacdah maalinkaa soomka la soomayo waxaa lagu dhaafayaa sanadkii tegey dembigii kaa dhacay iyo sanadka soo socda dembiga kaa dhacaya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga tirtiraya oo lagugu dhaafaya waxyaabaha lagaga faa'iidaysanaya waxaa ka mida walaalayaal inaynu ducada badinno ducada lagu dadaalo
nebigu wuxuu tilmaamayaa khayru ducaa'i ducaa'u yowmi carafa duco waxa u khayr badan ducada maalinka carafa la ducaysto ducada inaynu badinno oo ilaahay wanaag weydiisanna iyo khayr ayaa waxa weeyaan loo baahan yahay maalinkaas sidoo kale dikriga iyo xuska iyo qur'aan akhriska iyo alla ka cabsiga inaynu xoojinno aad iyo aad bay muhiim u tahay القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ogeysiis waxaa loogu bushaarinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ee dunida ka joogaan in ay madrasada ahlul qur'aan online ay qaadanayso 2 fasal ka koobaad oo ah fasal ibtidaa'i ah oo bilow ah kaasoo dadka quraanka lagu xifdisiinayo laguna saxaayo laguna laqimayo الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم iyo iyadoo loo laqimayo quraanka kariimka lana xifdisiinayo laguna barbaarinayo tajwiidka اهدنا الصراط المستقيم المستقيم ثم لا ترونها هنها دين ثم لا ترونها ونها ثم لا ترونها عين اليقين ونها هذا كرب هو هدين هنها دين ونها 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 fasalka labaad oo ah fasal dhexdhexaad ilaa dhamaad kaasood ka helaysid muraajaco iyo subcin iyo cod qurxin الله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما la xidhiidhaya adreyska iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda